إخواني أحبتي في الله ولي وحين كجرني إني وحكا بيامينو فضائشة بشان شعبان bisha shacbaan maanta waxay maraysaa 8 ikhwaani bishani faa'iidooyin badan bay leedahay sida nabiga sallallahu alayhi wasallam noo tilmaamay ummu salama radiyallahu anha ayadoo tilmaamayso fadliga bishani ay leedahay baa waxay tiri ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasuumu shahrayn mutataabi'ayn illa shacbaan aw ramadaan oo macnaheedu yahay maanan arag nabiga sallallahu alayhi wasallam uu soomaya laba bilood oo isku xigta aan ka ahayn bisha shacbaan iyo ramadaan marka ikhwaani bishan oo bil aad u fara badan soonka nabiga sallallahu alayhi wasallam bishani soomay dhamaystiran miyay ahayd mise mayna ahayn culimada intooda badan waxay markaa isku markaa waafaqeen in markaa nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan bisha shacbaan wada soomin balse nabiga sallallahu alayhi wasallam uu wax ka soomay waxayna soo qaataan xadiiskii Aisha radiyallahu anha ay warinaysay sahih muslim kana ku qornaa xadiiska wuxuu ahaa ma calimtu yani nabiga sallallahu alayhi wasallam istakmala siyam shahrin illa ramadan ma ogi bay tiri nabiga sallallahu alayhi wasallam in nabiga sallallahu alayhi wasallam soon uu soomay ma ogi aan ka ahayn bisha ramadaan oo waxay u jeedaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu wada soomay bisha ramadaan oo kaliya laakiin bilaha kale wax buu ka soomi jiray marka ahibati fillah ka faa'iideysta quraanna akhriya soonkana kaga qayb qaata bishan